qofku jecel wax ku sheego ma Soomaaliya barata tagtay horayusa wasatay Soomaaliya ana kala sheegay laakiinse ana sax sheegay okay what do you say what do you say I said what did I say qofku jecel wax sheego yes that's it qofku jecel wax ku sheego Assalamu alaikum all the beautiful souls, welcome to our channel Tijawi Studio. Tijawi Studio waxaa kaga hadli doonaa barnaamij aan ugu magac darnay isbedelka nolosha halheeskiisuna uu yahay hore u soco. Please don't forget to subscribe, comment, press the bell button for notification. One of the first things we're going to talk about is I'm going to give you an examples, right? The first thing that I want to give you an example is qof walba adduunka uu joogo ilaahay sibuu abuuray. Absolutely. Everybody is differently. Everybody is like qofba ilaahay aqli buu siiyay, qof qurux buu siiyay, qofba wax buu siiyay, ilaahay qofna ma qadanin ya. So one of the first thing I want to talk about is your mistake or your mistake. No matter what you do in this life, like in this world, adduunkan hadda aad taagan tahay, your mistakes are your mistake. Learn from your mistake. That's the only way you can move forward in life. Shalay waxa dhacay ma soo celin kartid. Therefore, aad isbedel soo been kartaa. Maxaa la dhahay waxa dhacaan maxay u dhacaan lama dhaho. Sidee ku xalin karaa? Absolutely. And go for it. Like hor uga soco. Yes. And then the next thing I want to talk about, don't compare yourself to others because you are not them. Yeah. That means like maanta hadaan dhaho Muniro maanta saan waaye waxaan bay haysataa markaan bay xiran tahay kanbe. Don't do that. Don't absolutely no cross. Yes. That means absolutely no zone because noloshaada adiga haddaad ku faraxsanaan oo adiga maxaa dhahdaa instead of inaad dhihi lahayd waxaan xasaasay masha Allah Muniro waxaan haystaa insha Allah anina ilaahay siiyo I'm going to work towards that to get that. If you want that you can work towards that and get that. Alhamdulillah dadka hormaray waxay soo biyaan like they never look back like dhinacyada ma fiiriyaan hore ay fiiriyaan noqo qofka lagu daydo naftaada ka bilow. Absolutely. There's no right way to do things. You do you. Adiga waxaad maskaxdaada maanta kaaga soo go'day naftaada kaaga soo go'day ayaa sameynaysaa. Like you do you meaning like whatever you adiga like if you want like wax adiga qancinaya samee horumarkaada. Adiga haddaad nafsadaada if you put yourself first you can help other people. Do you remember that for example the flight? Yeah. When you go on a flight they tell you the first thing if you have a baby with you the first thing they're going to tell you is if you're going to save if something happen God forbid something happen in the airplane they tell you put your own mask first and then put your babies on. Meaning nafsadaada baabadi ko marka nafsadaada baabadisid kadib oo markay dhahaan Soomaalida xataa way ku haysaa tiisa daryeelaha tu kala ku daro. Absolutely. You know hadda adiga naftaada hormarisid so حتى قف كل ما عاوين كرت هذا عاونين. Think like أنا قاعد فيجا هاي قف كلا عاون أيا. No, it doesn't work even. هذا حتى guilt بكون ولا لسه. Exactly. Stand up for what you believe, even if it's unpopular. Like مانتا أنا قاعد أمين سنة هاي وح أنا أمين سنة هاي. If I believe in something, I believe in that, and I'll work towards that, and I'll do that. وح كستي وقعة تبا. طلبات like. adigu naftirkaada if it's unpopular meaning like adduunkoo dhan hadday ka soo horjeedaan waxaad adigu aaminsan tahay iska hilmaam like adaa believe garaysa you believe in that so you should go forward with that. macnaha marka lagu dhahayo human being being maxaa ahaansho waaye you have to be being like inaa ahaanshahaada aaminsan tahay waxaad tahay so haddaa dhahdo like fake mask haddaa isticmaashid like aniga and then which kale host is imagine no I always say like haka cabsan adeer haka cabsan eedo way fiican tahay diinta in marka hore ilaahay ka baq bas no one else so hada qof dartiis wax u joojinaysid don't do that ku socmaalta wax subinaysid wax fiican like adeeg u taala laakiin qof waliga wax u joojin laakiin ilaahay number 1 ka dhig second adiga wax kun raali galayso bi don't ever please someone. Absolutely.
And the other thing, learn from your no, hold on. And the other thing is learn from people who criticize you, because if you learn from people that criticize you, you will grow. Like حناخن هدين, why is this person criticizing me? Why is this person on me? Why is this person like that? Why? No. If a person tells you like, oh listen, Adayo, you didn't do, for example, if someone comes up to me and says to me, Adayo, you didn't do this and this and this right, وفرسنا وحكودا okay, what is like محا قلدن محا صح محا قف ويناتها وفكرة ساكلي. Like you'll be thinking like, okay, what did I do for a mistake? What did I do? Like that's the only way you will grow and learn. Like قف وح كل شيء مجرت أدونك قف ولا بح وبرتها وح كسرنا ولا برتها. اعلم فليس المرء يولد اعلم فليس المرء يولد عالما بالله برقف كموسم كل الله راح أسوي أقانو. So محل ده النبي صلى الله عليه وسلم إن مركو إسكود ده محل ده إنه كقليو أما قف وحب وشيء وحال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. So هذا لجوانيو it doesn't mean like إن لجو محلها أو ما لجو قيل لا أم واحد لجو ده ذاتك إسواح إسود درسنا أم واحد شيء جوا قفكو جعل محلها صوالي هذا قفكو جعل واحد شيء جوا ما صوالي برا تتكتي الرئيسة وسعتي صوالي أنا كمان شاكد لكيسة أنا أستح شاكد. Okay. What do you say? Oopsie. What do you say? I said what did I say? قفكو جعل أيوة شيء. Yes. That's it. قفكو جعل واحد شيء. Yeah. مركل لقولها يوم مركل إن آيات القرآن كم هي إن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بالله وأنا ذكو واحد في عبء قاتل النساء. So قف كستوبة هي قف وانية أما قف محلها إن وحسية motivation بهنا هاي. like أنا عادي هذا ما تموني لما وقت هاي وحساجرو هالكاس يوتيوب كاس قال أما ويش قال وحكى فائدة so actually I will be thankful like yeah وجسنا وح بكبرنا يعني قف أدون كبافكت موجرب قف كستو حتى PhD حتى still knowledge أبها هاي نوعين أعتبر. Absolutely. Yeah. The next thing that I wanted to talk about was everybody has a problem in this world. Like there's no one single person in this dunya that doesn't have no problem. Dunya means world, by the way. That does not have no problem. Like everybody has a problem. Yeah. But don't look at the problem. Look at the solutions. Like find solutions. That's what I do. If I meet up with a problem, I don't see it in a negative way. I don't see it in a bad way. I don't see it in a I go straight up and look for the solution. Every problem, there's a solution for it. So you need to find that solution. Don't look at the problem, but find the solution. Yeah. هذا دبعته في ريست دبعتين بدن بهلسة لكن هذا حل كفي ريست حل بهلسة. Yeah, positive way. Yeah. Absolutely. Last but not least, surround yourself with the positive people. Don't surround yourself with the negative people. When you surround yourself with the positive people, your life will move forward. But if you surround yourself with the negative people, you'll be stuck somewhere, like stuck in the past, for example. You'll be like thinking about what happened yesterday, what happened to me, like you won't go forward. So you need to surround yourself with the positive people, because that's called if you surround yourself with the positive people, that means like you get a push, like, you know, when you have that push in life and like you move forward in life. Yeah. Soomaalida waxay dhahdaa biyo ka badan iyo dad ka badan way ku qaadaan ma kala jirto oo dhaheeso dariskaaga ma ku cadeey ma ku madooy wuxuu ka dhigaa soo qofka saaxiibkaaga haduu ma tukado ka dhigaya taariikh salaad haduu yahay qof negative ma tan complain ku jiro I wish waxaan haysan lahaa adigana negative sidii waxa lahaa dariskaaga mar waa ku daydaa mar waa dariskaaga waa la yaabtaa mar waa ku daydaa mar waa ka dartaa so waa ka daraysaa marka dambe. If you want to be positive, be positive, like dadka kugu xeereysan ama ku garab jooga ha ahaadaan dad positive si fiican u fakaraan qof adiga waliga ka dambeeya ha fiirin hala saaxiibin qof laakiin wax ka faa'iideysa saaxiib ka dhigo saa horumar nolosha uga gaartid. Absolutely. haddaa rabto su'aalaha waa soo gudbin kartiin waana la faa'iiday maxaa la waa soo faa'iideynaa no faa'iiday ani faa'iideyno. Yeah. So su'aalihiina waa idin qarinaya wax kasto wax private wax soo martay dhibaato wax walbana la wadaagi kartaan laakiin magacina waa idin hayb garanaya. And we will promise you we're going to answer in the best ability and we're trying to give you the best advice as we can. Absolutely. And yeah. waxaa nagala socon kartaan Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat.
Let's drive. Horeyso. Oi, Horeyso. Horeyso. Please subscribe, like, comment, and press the notification button so you know.